assalaamu calaykum. Ka waran haddii aan kuu sheego waddooyin aad wax ugu baran karto qaabka wanaagsan qaabka aad hadda wax u barato. Waxaan muuqaalkan kugula wadaagi doonaa 10 waddo aad wax ugu baran kartid sida ugu wanaagsan. Haddii aad raacdo 10kan tillaabo waxaan kuu ballan qaadayaa inaad ku guuleysan doonto wax kasta oo ku saabsan waxbarashada, sida macallimiinta, ardada wax kula baranaysa, wax kasta oo ku xeendaaban waxbarashadaada. Ku soo dhawaada mowduuceena maanta. Nambarka 1 waqti u deji akhriska. Waxa ugu horeeya ee uu sameeyo arday walbo wanaagsan waa inuu waqti u dejiyo akhriska. Inta badan ardadu waxay ku fashilmaan inay waqti u dejiyaan akhriska. Waqtiga waa waxa aad maamuli kartid laakiin ma ahan waxa aad dib u soo celin kartid. Waxaad haysataa maalinkii 24 saacadood 140 daqiiqo. Marka saacadahaas waa inaad ugu faa'iidaysataa inaad wax ku baratid qaar ka mid ah. Waxa ugu horeeya aad u baahan tahay waa inaad waqti u dejisaa akhriska oo aad dhahdaa maalin hebel saacad hebel ayaan wax akhrinayaa. Laakiin haddii aysan jirin waqti aad u dejisay akhriska way kugu adkaan doontaa inaad si sax ah wax u baratid. Nambarka 2 ku celceli wixii aad akhrisay. Sida caadiga wixii aad maanta akhrisid beri waxaad ka xasuusnaan doontaa 50%. Maalinta ku sii xigtana waxaad ka xasuusnaan doontaa 25%. Isbuuc kadibna waxaad ka xasuusnaan doontaa 5%. Waana sida maskaxdu ay u shaqeyso. Sidaa darteed waxaa muhiim ah wixii aad maanta akhrisid inaad ku soo laabatid maalin ama 2 maalin kadib. Mar walbo aad ku celcelisid mowduuca waa mar walbo ay sii kordhayso xusuusta aad u yeelan doontid mowduucaas. Nambarka 3 xogta aad baratay u bedel nooc aad ku fahmayso. Tusaale haddii aad ka akhrinaysid 10 buug u bedel qaab cod ah. Waxaad samayn kartaa inaad ugu duubto moobilkaaga cod ahaan kadibna aad ka dhagaysato mar walbo aad fursad hesho. Qaasatan haddii ay kugu adag tahay xifdiska wadadan way ku caawin doontaa. Kaliya ma ahan cod waa wado kasto aad ku fahmi kartid waxa aad akhrinaysid. Sida inaad muuqaal ka samaysid, sawiraan aad ka samaysid, wado kasto kuu fududayn kartaa inaad xogta aad baranaysid u fahantid. Nambarka 4 xadid goobta aad wax ku baran kartid. Way ka duwan tahay sida aad wax ugu barato fasalka marka aad joogtid sariirtaada ama xaafadaada. Way ka duwan tahay marka aad darjiinka xaafadaada fadhidid marka aad joogtid fasalka. Haddaba ogow goobta ugu wanaagsan ee aad wax ku fahmaysid. Waxaa laga yaabaa inuu qof ku fiican yahay inuu wax ku barto gurigiisa. Sidoo kale qofna laga yaabo inuu ku fiican yahay inuu wax ku barto darjiin ku yaala xaafadda horteeda ama inuu aado masjidka. Haddaba waa inaad xadidaa goobta ugu fiican ee aad wax ku fahmi kartid. Nambarka 5 iska fogay wax ka hor istaagi kara inaad wax akhrisid. Iska fogay wax kasto caqabad ku noqon kara inaad wax akhrisid sida isticmaalka baraha bulshada iyo taleefanka caadiga ah. Iska dami moobilka. Sidoo kale iska fogay wax kasto caqabad ku noqon kara akhriskaaga. Haddii uu guriga yahay mid mashquul badan ka fogow ee tag meel aan mashquul iyo buuq toona lahayn. Nambarka 6 ku dhiirigeli naftaada waxa ay baranayso. U sheeg naftaada sababta aad wax u baranaysid. Waxaan u baranayaa inaan noqdo dhakhtar. Waxaan rabaa inaan noqdo injineer. Waxaan rabaa inaan noqdo ganacsade. Waxaan rabaa inaan noqdo siyaasigii ka saari lahaa dalkayga dhibka uu haddeer ku jiro. Derbiga ku qor sababta aad wax u baranaysid subax kastana akhriso oo ku dhiirigeli naftaada inay sida ugu wanaagsan wax u barato. U sheeg naftaada inay aqoontu tahay furaha nolosha. Si la mid ah u sheeg inay guushu aysan ahayn waxa u dhaca si shil ah ay tahay wax loo dhidido. U sheeg naftaada mahmaayada Soomaaliyeed ee ah haddii aad maanta ka dhididin maskaxda waxaad hadhow ka dhididi doontaa dhabarka. Taas oo micnaheedu yahay qofkan wax baran waxa uu noqon doonaa xamaali. Nambarka 7 xilliga imtixaanka xooga saar maadooyinka aad ku liidatay sanadkii hore. Waxaa muhiim ah inaad isku dheelatirtid natiijooyinka maadooyinkaaga sanadba sanadka ka dambeeya. Waxaan ula jeedaa inaysan jirin maado aad ku liidato. Haddaba sidee ku samayn karaa midaas? Marka aad imtixaan galaysid waxaad raadisaa maadooyinka aad ku liidatay sanadkii hore kadibna ayaga xooga saar sanadkan. Waayo kuwa kale waad ogtahay inaad ku wanaagsan tahay. Tusaale haddii aad ku fiicneed maadada Ingiliishka oo aad ku liidatay tan Carabida sanadkan waa inaad xooga saartaa Carabida oo aad waqti ka badan kan Ingiliishka gelisaa. Waayo Ingiliishka waad ku fiican tahay waana wadada aad ku simi karto natiijooyinkaaga. Waxaana meesha ka baxayso maada hibil kuma fiicni. Nambarka 8 wax u baro sida macalinka oo kale. Ha u baran siday ardada wax u bartaan ee u baro sida macalinka oo kale. Isweydii xisad walba sidee maadada ugu fahmi karaa sida macalinkayga oo kale. Waa inaad weydiisaa macallin walba maadada ugu dhigo sida ugu wanaagsan aad ku fahmi karto iyo waxyaabihii u fududeeyay isaga xilligii uu baranayay.
Nambarka sagaalaad, sii gudbi wixii aad baratay. Waa inaad gudbisaa wixii aad baratay. Waxaa jiro wadooyin badan aad u gudbin karto wixii aad baratay, sida inaad ardada kugu kalaaska aad ugu celiso maadooyinka, ama inaad xaafadda ka furitid iskuul yar oo aad ku dhigtid maadooyinka aad barato. taas waxay ka caawinaysaa inaad si wanaagsan u baratid maadooyinkaaga dhammaantooda. Nambarka 10aad ee ugu dambeeya, u shaqeey si adag. haddii aad tahay ardayga ugu caqli badan fasalka laakiin aadan ka shaqo badnayn dadka kula dhigta fasalka 30 ama 20 ah, way ka sari mari doonaan xilliga imtixaanka, sababtoo ah ayaga ayaa ka shaqo wanaagsanaa imtixaanka ka hor. sidaa darteed waxaa muhiim ah inaad u shaqaysid si adag, waana waxa lagu kala hormaro qofba qofku ka dadaal badan yahay ayuu ka sara maraa.